fadlan haddii tahay muuqaalka marka kugu horeysay like noo saar channelkan haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar waa dhiirigelin asxaabta nagu cusub soo dhawaada ya asxaabta hore ku soo dhawaada muuqaalkeena cusub waxay ahayd habeen saqdhaxa telefishinka email kastana waxaa laga baafinayay inuu nin soo fakaday ninkaasna uu yahay nin horor oo dadka cuno meel kasta ayaa laga sheegay macal dhalooyinka ayaa laga sheegay runtii aniga markaas waya banaqadka ayaan ku jiray bahalkaasna wal sheegay ninkaas aniga markaas saaxiibkay ayaa la hadlay waxaan dhahay saaxiib iimo caaw waxaan aadaynaa guriga saaxiibkeen dhalada waan soo daawanayna haye ayuu yiri waan ku imaanayaa okay ayuu yiri xoogaha marka joogno way imaaday waa israacnay guriga saaxiibkeen ayaan imaanay haye ii war ayaan dhahay saaxiibkay haye soo gal ayuu yiri dhalada ayaan daawanay cabaar filan hor ayaan daawanayna xoogaa saa u daawanaynay runtii waa yaabana aniga waxaan aan daawanay hor ay ahayn daqiiqad marka la joogo maqrib ay isku bedeshay qoraxda ayaa dhacday xoogaha marka la joogo muuqaalka aan daawanaynay ayaan yaabay horarka iyo balaayadan aniga markaas waan naxsanaa laakiin saaxiibka ayaa dhahay saaxiib waan daahnay ninka aan baxnay waa si hooynina waa haween waayha ayuu yiri waan soo baxnay waxaan soo aanay gurigeeni xoogaha markaas soconay waxayna ahayd laba saac iyo bar habeenimo ay ahayd daqiiqada kadib xoogaha markaas soconno wadada weyn aan ku dhacnay kadib waxaan soo xasuustay gabar aan saaxiib la ahaa gabadhaas waxaan dhahay runtii gabadhaas gabar fiican ma ahayn ayaan dhahay midaan kale ayaa ka fiican hadda aan jeclahay sababtoo farqi weyn ayaa u dhaxeeya kadib waxaan arkay wax aan la yaabo markaas soconay saaxiibkay ani waa yaabnay waxaan aragnay nin meesha taagan oo qoort inuu ka damay amood oo soo fiirinay runtii waa ninka dhalada laga sheegay aniga waan naxa ninka uu soo fiiriyay indhihiis meel kasta guduud ayay ahaayeen runtii markaas waan naxa aniga saaxiibka dhidid ayaa iga soo daatay aniga waxaan dhahay waxaan maxay ahaayeen kadib uu soo fiiriyay qoorta ayuu noo leexiyay kadib aniga markaas waan baqay waxaan dhahay muxuu ahaa waxaan kadib aniga waa isla gaduutay runtii waxaan arkay inuu yahay ninkii dadka cunay kadib isha ayuu si fiican noogu hayay asoo si fiican noo fiirinay oo anigana aad u baqay ayaan saaxiibkay wuxuu yiri saaxiib waan caranaynaa guriga saaxiibkeena noo muuqday guriga saaxiibkeen wuxuu noo jiray xoogaha ayuu noo jiray dhowr tilaabo kadib aniga waxaan dhahay saaxiib waan cararayaa kaxee meeshaan naga wad waaya ayuu yiri waan cararnay aniga saaxiibkay runtii orod aan caadi ahayn ayaan dhignay saaxiibka ayaa iga horeeyay xoogaha saa u ordaynay markaan cabaar orodnay ayaan guriga saaxiibkeen kor ka fiirinay albaabka markaan arkay xoogaha uu noo jiro ayaan gadaal fiiriyay runtii markaas waan naxay waxaan arkay ninkii oo noo soo daba socdo runtii si fiican ayuu noo fiirinay ani markaas waa cabsanay ninkana afka ayuu kala hayay xilli kasta runtii cabaar ayuu ii jiray meesha wadada geeskeeda ayuu taagnaa dhihiisina waxay noqdeen guduud way dhaafeen aniga markaas waan baqay runtii aniga xataa waan guduud horar ayuu ahaa ninka markaan baqay wuxuu la soo baxay midida ayaan arkay midida markuu la soo baxay ayuu yiri waan ku cunayaa igama baxsanaysa kadib aniga saaxiibkay ayaan ku qayliyay saaxiib naga fur ayaan dhahay albaabka ayaan dhahay waan naga fur orod ayaan ku marnay albaabka ayaa sanka uga dhacay sababtoo sankina wuu gaduutay kadib wuxuu yiri war maxaa kaa qaldan ayuu yiri saaxiibow waa adiga albaabka igu soo dardaray maxaa kaa qaldan war waxaan dhahay war ma ogide dhalada waxaan nageysaa kaamirada nagey wax la yaab leh ayaa albaabka taagan kaamirada ayaa imaanay iyo leenka agtiisa saa u fiirnay albaabka wax soo istaagay xoogaha markaa joognay albaabka saa u taagnayn ayaan waxaan aragnay waxaan la yaabay ninkii oo meesha taagan saaxiibkay markaas way yaabanaa wuxuu yiri maxaa waxaan runtii albaabka hortiisa guriga hortiisa ayuu marmarayay ninka wuxuuna ahaa ninka mugda ayaan ahayd meesha kadib midida ayuu tusay wuxuuna yiri waa indulo iyo caaw igama baxsanaysiin aniga markaas waan naxay waxaan xanaaqay waxaan dhahay waxaan muxuu ahaa caawi daba socdo runtii saaxiib waa horarka ayaan dhahay kadib aniga waa isla gaduudan aniga saaxiibkay asxaabteedii kadib meesha ayuu soo istaagay albaabka agtiisa ayuu soo istaagay runtii wuxuu sameyn rabo ma aqaan
anigana waa baqay kadib albaabka ayuu kaamirada ayuu sanka soo saaray iyo indhaha kadib aniga markaa zaid ayaa u siinaxa waa yaabay waxaan dhahay waxaan runtii cabsi badan ayaa dareemay kadib afka ayuu kala qaaday wuxuu yiri kuma dhaafayo caawid ilaa kadib saaxiibkay ayaa waxaan dhahay maxaa suubina oo xal ah wuxuu yiri iska bax daqiiqad waa weyna ninkii kadib aniga kaligay ayaa soo baxay soo aaday xaafad saaxiibkay ayuu la bariyay daqiiqado gadaal ayaa fiiriyay waxaan arkay wax yar la yaab leh kadib habeen dambe ma soo bixin habeenkaasna xaafadeeda ayaan ku hooyday runtii aad ayaan u baqay mar dambe ma soo